kulan wacan daawadayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka dabagalka wararka oo xilligan si toosa idinkaga imaanaya stuudiyaha Universal ee magaalada Muqdisho. Anigoo Nuur ah ayaa barnaamijka idinla socodsiin doona haddii aad leedmo qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya gudiyada joogtada ah ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si degdeg ah iyaga iyo guddoonka golaha shacabka waxay ugu yeereen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre si ay u weydiiyaan isna uga jawaabo su'aalo ay qabeen xubno ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya. Waan idinkaga warrami doonaa arrinkaasi haddii aad leedmo. qodobada kale ee barnaamijka ku daawan doontaan waxaa ka mid ah qayb ka mid ah howlgalka AMISOM. ciidamo ka tirsan howlgalkaasi ayaa waxa ay ka guureen mid ka mid ah fariisimahoodii ugu weynaa ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho. arrinkaasi waxaan idinkaga haynaa warbixin iyo wareysiyo haddii aad leedmo barnaamijka ayaad ku daawan doontaan. qaybta dambe ee barnaamijka waxaan idinkaga warrami doonaa golaha ammaanka qaranka Soomaaliya oo ku shirsanaa muddo ku dhow isbuuc magaalada Muqdisho. waxa ay ka soo saareen warmurtiyeed ka koobnaa qodobo waxayna ku heshiiyeen qodobadaasi siday suuragal ku tahay in qodobadaasi ay fuliyaan haddii aad leedmo. waxaan idinkaga haynaa arrinkaasina falanqeyn ku aadan golahaasi iyo warmurtiyeedkaas ay soo saareen. barnaamijka waxaa soo saaray Guuleed Cabdisalaad Qaari, anigoo Nuura ayaa idinla socodsiin doona haddii aad leedmo. ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dabagalka. waa tahay aan ku bilaabay ciidamo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM loogu magac daray ayaa waxay ka guureen mid ka mid ah fariisimahoodii ugu weynaa ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho. ciidamada AMISOM waxa ay ka guureen xaruntii jaamacadii Gahayr ee ku taala degmada Wadajir. xarunta halkaasi waxay ciidamada AMISOM fariisin u ahayd oo ay deganaayeen muddo ku dhow 10 sano. waxaana ay ciidamada AMISOM qaybtooda gaar ahaan ciidamo ka tirsan kuwa midowga Afrika ee Soomaaliya jooga gaar ahaan kuwa Burundi ayaa halkaasi fariisin ay u ahayd jaamacadda Gahayr ayay ka guureen. waxaana munaasabad arrinkaasi ay lagu soo dhaweynayo oo ciidamadu ku wareejinayeen saldhigoodaasi waxa uu ka dhacay gudaha jaamacadda. ciidamada ayaa gabi ahaanba halkaasi ka gurtay qalabkii u yaalay iyagoona ku wareejiyay ciidamo boolis ah oo xaruntaasi si ku meel gaar ah ammaankeeda ula wareegaya. jaamacadda Gahayr ayaa waxay si toos ah u hoos timaadaa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Soomaaliya. inta ay wasaaradda uga soo tashanayso jaamacadda waxaa si ku meel gaar ah u sii hayn doona halkaasi ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya. munaasabada lagu wareejinayay waxaa goobjoog ka ahaa saraakiisha sarsare ee howlgalka midowga Afrika ee AMISOM, xubno ka socday midowga Afrika. sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa qaramada midoobay wakiilka xafiiskooda Soomaaliya gaar ahaan Michael Keating oo ah u qaybsanaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya. wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, barayaal horey jaamacadaasi wax uga soo dhigay, arday horeyna ka soo ahaa ayaa munaasabadaasi goobjoog ka ahaa. munaasabada lagu wareejinayay waxaa khudbad bogaadin ah ka jeediyay wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan. qayb ka mid ah khudbadii uu halkaasi ka jeediyay ku soo dhawaada daawadayaal. jaamacadda Soomaalida waxaa si rasmi ah loo aasaasay oo looga dhigay jaamacad 1969kii kaasoo lagu furay kuliyadihii sharciga iyo dhaqaalaha kuwaasoo laga dhigay markan kuliyado. 1971kii waxaa lagu soo daray kuliyadihii beeraha, tii kiimikada iyo waxaa soo raacay 1972kii oo lagu soo daray kuliyadii waxbarashada. 73kii waxaa ku soo biiray kuliyadihii medicine, geology, tii xanaanada xoolaha, tii engineeringka iyo markii ugu dambeysay 1979kii waxaa ku soo biiray kuliyadihii luqadaha, kuwii Islamic Studies iyo tii saxaafadda. ilaa iyo dawladda intaysan dhicin ka hor kuliyadihii ugu dambeeyay ee laga furay dalka waxay ahaayeen jaamacadda Soomaalida ay furtay kuliyadihii waxbaridda macallimiinta iyo tii cilmiga barista siyaasadda. dalka intuusan aysan naga dhicin dawladdii dhexe 1991kii oo aan dagaalada sokeeye aysan dhicin
jaamacaddu waxay bixinaysay ama dhiganayay arday ka badan 15,000 oo Soomaali ah waxayna lahayd 800 oo staff ah isugu jira kuwa cilmiga dadka wax baraya iyo kuwa maamulka ka shaqeeya markii ugu dambeysay jaamacadeena oo halkan uu ahaa kii ugu weynaa waxay bixinaysay 4 sano oo uu qofka ku soo qaadan kara tacliinta ta ugu hooseyso heerka 3aad oo ah bachelor waxa kale bixinaysay koorsooyin kuwaas ka sareeyo iyadoo uu qorshahu ahaa sanado gaaban gudahood in jaamacaddu ay bixiso waxbarashada heerarka ugu dambeeya laakiin nasiib darro dagaalkii ayaa meeshaas ka dhacay jaamacad waa tilmaanta waxbarashada heerka ugu sareyso waa tilmaanta cilmi baarista waa tilmaanta aqoon sare iyo xirfad waa tilmaanta ilbaxnimada haddii maanta aan arkayno ilbaxnimada iyo aqoonta iyo xirfadda tilmaanteedii dalkeenna uu maanta sidan uga burbursan yahay waxaan ogaanaynaa heerka aan taagannahay laakiin iyadoo waxaas ay dhaceen haddana waxay la tahay waxaa jira yididilooyin iyo fafaalooyin waaweyn taasoo aan dhihi karno Soomaaliya way soo kabsatay wayna sii tilaabsanaysaa haddii la yiraahdo dhowr usbuuc ka hor waxaan ku marti qaaday ra'iisul wasaaraha dalka qayb ka mid ah jaamacadda ummadda oo ku taala number 4 halkaas waxaan isugu keenay 1,000 arday oo ah ardayda jaamacadaha wax ka barto waxaa la ii sheegay goobta aan maalintaas fadhinay oo aad u qurxaneed ay lahayd jaamacadda ummadda sanad ka hor inay ahayd meel lama galaan oo sidan oo kale ah laakiin dadaal ay samaysay xukuumadda iyo gaar ahaan hogaamiyaha ama guddoomiyaha jaamacadda ummadda waxay sameeyeen dhismo aad u weyn oo qurxan oo suurageliyay inaan isugu keenno 1,000 arday oo Soomaali ah oo haysata waxbarashada sare waxaan aaminsanahay maanta inkastoo ay niyadeenna xun tahay haddana si kale marka loo fiiriyo ay fiican tahay guddoomiyaha jaamacadda aan ku ogahay nin aad u dadaal badan inaan halkan ku arki doonno sanad ama 2 sano kadib sawirkan ka duwan dhismahan Gaheyr waxaa la furay markii ugu horeysay 1985 sidoo idin sheegay guddoomiyaha jaamacadda ummadda waxaa loogu magac daray wasiirkii waxbarashada ee joogay xilligii dalka uu ku jiray 70meedii horaanteedii ololihii waxbarashada dalka ee af Soomaaliga dadka lagu barayay ayaa looga dhigay sharaf in loogu magac daro kampaskan oo ka mid ah 7 ay leedahay jaamacadda ummadda waa kan ugu weyn wuxuuna leeyahay baaxad 900 iyo wuxuu leeyahay 913,500 oo metr square ah baaxad la eg waa ka ugu weyn wuxuu bixin jiray kuliyado badan ayaa halkan laga qaadan jiray kambaska waxaa kaloo uu leeyahay meel ardadu ay seexato meel wax lagu cuno libraries iyo meel facilities kale ardayda ay ka faa'iidaystaan si kasta ha ahaato jaamacaddii ummadda waxaa la soo celiyey 2013 maanta waxay leedahay 8 faculty waxay leedahay 2 xarumood kani waxaan rajaynaynaa inuu noqdo kii 3aad ugu weynaa maanta jaamacadda ummadda waxaa wax ka barta in ka badan 1,400 arday waxaan rajaynayaa in ifafaalahan soo baxay uu noqdo kii dalka ku soo celinayay ilbaxnimadii iyo
aqoontii iyo xirfaddii naga maqneed annaga xaggeenna dowladda aan matalayo uu madaxa ka yahay prime ministerka ka yahay ra-iisul wasaaraha ka yahay mudan xasan cali khayre uu ka yahay madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo waxay muhiimad xoog leh oo koowaad iyo labaad iyo saddexaad siinaysaa marka laga reebo nabadgelyada iyo horumarinta dhaqaalaha waxbarashada taasina waa waxaa ma arkaysaa aan aaminsannahay in ay keenayso horumarka keliya ee waari karo kaasina waxa uu ahaa daawadayaal wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk ee Soomaaliya cabdiraxmaan daahir cismaan oo ka qayb galay munaasabad ciidamada AMISOM qayb kamid ah ay ku wareejinayeen mid kamid ah fariisimahoodii ugu weynaa ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho in ciidamada AMISOM ee halkaasi taliska u ahaa waxay ka socdeen wadanka Burundi oo qayb ka ah ciidamada labaad ee ugu faraha badan ay ka joogaan Soomaaliya halkaasi waa xaruntii hore ee jaamacadda Gaheyr oo ku taala degmada Wadajir sidoo kalena kaabiga ku haysa xaruntii hore ee safaaradii hore ee ciidamada Mareykanka iyo dawladda Mareykanka waxa inoo soo socda wareysiyo aan ka qaadnay qaar kamid ah barayaashii jaamacaddii Gaheyr iyo sidoo kale jaamacadda ummadda halkaasina arday hore ka soo ahaa oo maantana nasiib u yeeshay in ay qayb ka noqdaan mas'uuliyiintii ka qayb galay munaasabadaasi ciidamada AMISOM ay ku wareejinayeen xaruntaasi waan ku soo noqon doonaa hadduu alle idma arrinkaasi la xiriira ka guurista ciidamada AMISOM ha yeeshee waxaan u weecanayaa gudiyada baarlamaanka ee joogtada ah ayaa waxa ay kulan degdeg ah ay ugu yeereen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyaga guddiga iyo gudoonkooda golaha shacabka waxa ay kulankaasi ahaa mid albaabada u xiran oo ay su'aalo ku weydiinayeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxaa qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku jira xildhibaan Macalin Cali Aadan oo ah ku xigeenka gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta iyo soo celinta hantida qaranka mudane xildhibaan ku soo dhawow barnaamijka dabagalka ee Universal TV bal waxaad inooga warantaa ujeedka su'aalo weydiintan degdega ah ee aad ugu yeerteen ra-iisul wasaaraha halo xildhibaane si fiican waa ku maqlayaa Nuur ku soo dhawow barnaamijka bandhiga bal waxaad warbixin inaga siisaa kulankan degdega ah ee aad ra-iisul wasaaraha ugu yeerteen isla markaana aad su'aalaha ku weydiinayseen muxuu ahaa ujeedkiisu iyo su'aalihii aad qabteen aad u mahadsantahay Nuur marka hore waa kaaga mahadcelinaya martaqaadka iyo xiriirka aad igala soo sameyseen TV-ga Universal iyo dhammaan shaqaalihiisa waa idinka mahadcelinaya midda kale kulanka maanta meesha la sugu yimid ajandooyin fara badan buu lahaa oo ku saabsan shaqooyinkii loo idmaday baarlamaanka hadday ahaan lahayd xukuumadda intaba saabsanaa shaqadii qaranka arrimahaas ayaa laga wada hadlay oo ajandooyin fara badanna ka kooban maxay ahaayeen markaa su'aalihii ugu adkaa ama ujeedka aad u qabateen kulankaasi oo weliba ahaa mid albaabada u xiran waqti badanna qaatay wax dhibaato ah ma jirin haddii sidaa la socotid xukuumadda iyo baarlamaanka intaba haddii xukuumadda guud ahaan ay ahaan lahayd iyo haddii ra-iisul wasaaraha uu ahaan lahaaba waxaa ka dhexeeya wada shaqayn dawladeed oo wada shaqayn qaran baa ka dhexaysa iyo waxyaabaha laisugu yaray oo laga wada hadlayna intaas baa kamid ahaa wax colaada ma jirin wax dagaala ma jirin wax hadda oo qaladaad ahoo hadda waaweyn oo hadda maxay ahayd ra-iisul wasaaraha ama xukuumaddiisa loogu yeerayna ma aysan jirin laakiin arrimo yar oo ay ka cabanayeen baarlamaanka xilligii la furayay kalfadhigii labaad oo hadeertaan nootay oo ku saabsanaa maxay ahayd fawaa'idihii meesha la keenay iyo waxyaabo noocaas oo beryaha sida aad la socotaan media uu ka warhayaa oo ku saabsanaa baarlamaanka markuu soo noqdo mooshin buu keenayaa iyo waxyaabaha noocaas ah marka arrintaas iyada ah ayaa ka mid ahaa taasna ay ahayd wax mooshin oo xukuumad laga wadana aysan jirin haddii mooshinkana inta badan iyo arrintii kale oo ku saabsaneed habeenkii dhexdaas oo lasoo dhaafay oo ahayd in yani taakuleen loo sameeyo ciidamada dad oo mas-uuliyiin maxay ahayd oo meesha lagu magacaabay kamid ahaa ay ka hadleen intaasoo dhanba waa isxog waraysi bay ahayd ma aysan ahayn wax dhibaato ah ama maxay ahayd oo hadda khilaafa ka dhexeeya xukuumadda iyo hadday ahaan lahayd iyo baarlamaanka ka dhexeeya ma aysan jirin
إنه على سكور استي وسوء أجيبي ويعتانكي لو وعي رئيس الوزراء في عم بونو هذلي جاهل بحي وحون الشيء رماه صورنا إنه سن شغل كلهن haddana waxyaabihii ay qoonsadeen hadday ahaan lahayd guddoonka ama guud ahaan baarlamaanka inuusan raalli ka ahayn waxyaabihii ay dhibsadeen sidoo kale asagana uu ka xun yahay raalligelinna uu ka bixiyey haddii intaas bay ahayd intaasaa laga wada hadlay shirkaasna si fiican buu usoo gebagaboobay haddii isfahan iyo wadahadal wanaagsan buu ayuu kusoo dhammaaday xildhibaane waxaad hadda carabka aad ku dhoofatay furitaankii kalfadhigii labaad ee baarlamaanka in riwaayad ka mid ahayd xafladii lagu furayay oo madaxweynuhu uu ka qayb galay in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ay aada uga caroodeen qaarkoodna ay ka baxeen hoolkii ay ka socotay riwaayadaasi maxay tahay sababta aad arrinkaasi ra-iisul wasaaraha wax uga weydiinaysaan oo la xiriirinaysaan miyaanu lahayn baarlamaanka guddi u qaabilsan dhinaca warbaahinta iyo fanka oo arrinkaasi aad wax ka weydiisaan ama aad wasaaradaha kaleete ee ku shaqada leh iyo xubnihii mas-uulka ka ahaa diyaarinteeda aad u weydiin weyseen oo ra-iisul wasaaraha ula doonateen aada u mahadsan tahay nuur arrimaha meesha la keenay oo riwaayadaha ku saabsanaa eedeyntoodii intaba hadday ahaan lahayd guddoonka iyo hadday ahaan lahayd hay-adihii kale oo meesha wax laga weydiiyey intaba in si qaldan ay wax u dhaceen waa sheegeen fanaaniinta waxyaabaha ay soo diyaariyaan ama haddii ay ahaan lahayd haddii t v la keenay iyo haddii warar la sii daynaya ay yihiin ay yihiin inta badan waa la tafaftiraa fanaaniin baa soo diyaariyey waana meeshii waa laga sheegay waxyaabihii ay sheegeena waxaa ka mid ahaa in baarlamaanka hadduu mooshin keeno shacabkan ku dirayna waxyaaba noocaasa marka meesha waxaa ka muuqata in fahandari oo xagga maxay ahayd mooshinka badan ay dadka isweydiiyaan mooshin micnihiisu ma ahan in wax lagu dumiyo waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaan u sheego maadaama annaga aan nahay golihii shacabka oo shacabkaas mar walba inaan ka shaqaynayno waxyaabihii qarankan u ahaa yacni horsocodkiisii iyo wanaagiisii iyo maxay ahayd horumarkiisa ka shaqayn lahaa waxyaabaha ay ka shaqeeyaan inay yihiin golaha baarlamaanka saasna ay ku matalaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan sidaa darteed waxaan rabaa mooshin markii la maqlo aan loo qaada in wax lagu duminayo tusaale ahaan hadday ahaan lahayd xafiisyada dawladda oo hay-adaha ugu sarsaree meel walba ay yihiin oo maanta ka jira soomaaliya haddii wax qaladaad ah ay ka dhacaan nocuu raba ha ahaado toban ha ahaado baarlamaanka wuxuu wax ku toosiyaa af keliya kama hadlo qoraal buu soo qoraa waxbuu soo jeediyaa haddii wasiir loo wacayo uu yahay haddii ra-iisul wasaare loo wacayo uu yahay haddii hay-ado kale ay yihiin qoraal buu wax ku toosiyaa oo uu leeyahay arrintaas oo dhaliilahaas ama waxyaaba noocaas ayaa jira waxaan rabnaa arrintaas inaan qofkaas wax ka weydiino ama aan kala hadalno sidaas darteed waxaan soo jeedinaynaa qof uu noo yimaado mooshin ma ahan in xukuumad laga keeno oo lagu rido ma ahan in madaxweyne laga keeno oo lagu rido ma ahan micnaheed marka shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego mooshin micnihiisu in uu yahay in wax lagu toosiyo waxyaabaha wax lagu toosiyo oo baarlamaanka loo edmaday uuna isticmaalo inuu yahay magaca lagu sheego mooshin uusan ahayn mid wax lagu dumiyo marka haddii tusaale ahaan xukuumadda hadda jirta waan u mahad celinaynaa iyo madaxweynaheeda intaba sida wanaagsan oo markii lasoo doortay iyo hadda waktigii yaroo ay joogaan ay u shaqeeyeen oo ay wax u qabteen haddana haddii shaksi ka mid ah ma ahan bani aadanka qalad baa ka dhici kara xitaa asoon ula jeedin inuu wax qaldo haddii ay wax ka qaldamaan waxyaabaha oo lagula xiriiro ama wax lagu weydiiyo waa mooshin waxaa laleeyahay intaasoo xildhibaan baa soo jeedisay arrintaas soo jeedinta warka mooshinka laleeyahay waa soo jeedin xildhibaan baa waxay soo jeedisay ay u yeeraan wasiir hebel oo wasaaraddaas mas-uulka ah arrimahaasayna rabaa inay wax ka weydiiyaan marka arrintaas micnaheedu ma ahan in wax lagu dumiyo waa in wax lagu toosiyaa qofka qaldan maxaa lagu toosiyaa mooshin baa la keenaa waxaa leeyahay wasiir hebel aan u baahannahay guddoonkaa loo keenaa guddoonku wuxuu u gudbiyaa maxay ahato prime ministerkii oo xukumayay xukuumaddaasi oo wasiirkaas uu ka mid yahay marka walaalo waxaan rabaa idinkoo mahadsan oo mar labaad aan idinkaga mahad celinayo oo fursad wanaagsan hadeertaan aada iga siiseen t v-ga barnaamijka hadda ka socda dabagalka wararka waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inay u ogaato mar walbana ay uu ka shaqaynayo baarlamaanka soomaaliyeed ay usoo admadeen inuu yacni uu u matalo shaqadii qaranka
mooshinka la leeyahay ma aan mid wax lagu duminayo waa mid wax lagu toosiyo xildhibaane sidoo kale laga keenayo meesha joogto inaysan jirin markii wax la toosinayona nidaamkaas wax lagu toosiyo haddana aan la dhacsanahay sida xukuumadda ugu shaqeyso cid hadda mooshin ka wada ama yacni dhibaato hadda u geysanaysa ama meel cidlaa wax ka doonanaysa oo xildhibaane waxaan kaa rabaa waxay su-aalaha ad ka weydiiseen waxaa ka mid ahaa hadallo laga jeediyey munaasabad ka dhacda xarunta booliska ee generaal kahiya taas oo ahayd mid ciidamada loogu yabohayay munaasabadaasi mas-uuliyiin ka hadashay weliba sheekh halkaasi ka hadlay hadal uu jeediyey ayay xildhibaanadu aada u dhibsadeen baa laleeyahay maxay tahay sababta arrinkaasi ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda aada wax uga weydiineysaan sida aada la socotid nuurow markii laga reebay dawladda guud ahaan hadda hay-adda fulinta ama hay-adda yani waxyaabaha oo hadda activitieska waddanka ka jira mas-uulka ka ah waxaa madax u ah ra-iisul wasaaraha hadda jooga xasan ali khayre sababta loogu yeerayna waxay ahayd cid walboo meesha wax ka samaynaysa hadday ahaan lahayd maxay ahayto nimankii wax ka jeediyey meesha fanaaniintii oo ka hadashay oo arrinkooda ayagana ay ka ahayd inay wax sameeyaan oo si kale loo qaatay waxay hoos yimaadaan wasaaradaha ka mid ah wasaaraddan waxaa mas-uul ka ah inta wasaaradooda meesha ka jirta dalka ka jirta ra-iisul wasaaraha ayaa mas-uul ka ah marka arrinta loogu yeeray haddaan si fiican kugu tafaftiro ma ahan dacwad waa wax iska weydiin arrintaasaan dareenne sidee bay arrintaasi u dhacday sidee baa wax u jiraan maxaa loola jeeday oo isagana si fiican uu ugu jawaabay ahayn wax dagaal ah aysan ahayn dacwad oo haddii sida aada la socotid baarlamanka korjoogteynta iyo dabagalka iyo waxyaabaha meesha ka socda nooc walba ha ahaadaane kan asaga keliya loola jeeda ma ahee iyagaa mas-uulka ah baarlamanka markan waa shaqo ka dhexaysa xukuumadda iyo hadday ahaan lahayd baarlamanka mar walba inay u yeeran karaan hadduu yahay wasiir hadduu yahay ra-iisul wasaaraha intaba marka waxyaabaha loogu yeeray oo laga weydiiyeyna waa intaas mas-uuliyaddana waxaa iskale mar walba oo hay-adahaas ay hoos yimaadaan ra-iisul wasaaraha taasaana sabab u ahayd iyadoona dacwo ahayn aad baad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa daawadayaal xildhibaan macalin cali aadan oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga dib u heshiisiinta iyo soo celinta hantida qaranka oo su-aalo waxa uu ka mid ahaa xubno ka tirsan golaha shacabka oo su-aalo weydiinayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya aad buu u mahadsan yahay xildhibaankaasi weli waxaad daawanaysaan barnaamijka dabagalka waa tahay waxaan dib ugu noqonayaa munaasabadii ka dhacday xaruntii jaamacadda Gaheyr halkaasi oo ay ka guurayeen qayb ka mid ah ciidamada howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ciidamadaasi oo ka socday wadanka Burundi ayaa halkaasi way baneeyeen oo jaamacaddii dhulkeedii iyo dhismaheediiba oo ay deganaayeen halkaasi waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya sidoo kale waxaa ka mid ahaa midowga Afrika xubno ka socday mas-uuliyiintii halkaasi ka qayb gashay waxaa ka mid ahaa arday wax ka soo baratay jaamacaddii Gaheyr sidoo kalena barayaal ka soo noqday waxay kala yihiin professor Cabdullaahi Sheekh Cali Qaloocow iyo sidoo kaleeto waxaa ka qayb galay oo halkaasi si gaara aan ula hadalnay oo waraysi gaara siiyey TV-ga Universal Admiral Farax Cumar Axmed Farax Qare labadaasi mas-uul ayaan si gaara ula kulanay waxayna inooga warreen ahmiyadda ay leedahay in halkaasi ay ka guuraan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM waraysigii aan la yeelanay ku soo dhawaada daawadayaal horta waxay annaga odayaashii hore ee jaamacaddan wax ka aasaasay sideedaba uu igala taagan yahay professor Farax Qare waxay noo tahay sharaf weyn inaan imaanno aynu aragno jaamacaddii qayb ka mid ah oo militariga AMISOM Burundi ay deganaayeen inay maanta dib ugu soo noqoto gacanta dowladda Soomaaliyeed gaar ahaan jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed annaga macallimiintii hore haddaan nahay jaamacaddan wax ka aasaasay waxay noo tahay maalin farxadna way noo tahay maalin aan aad u dareemayno in la bilaabay waddadii dhabta ahayd oo waddadii ummaddan lagu soo celin lahaa waxbarashadeedii inay tahay gaar ahaan heerka jaamacadeed waxaase aad noo dhibay waxaan u malaynayaa aniga iyo Faarax Qare
iyo professor cabdulaahi axmed afrax inay noogu dambaysay ilaa ay 30 sano wax ku dhow waxaase naxtin lahaa garasho la'aanta jaahilnimada qaabka loola dhaqmay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed waa meeshii indhaha Soomaali ay ka soo baxeen meeshii aqoonta ay ka soo baxday meeshii ay ka soo baxday saraakiishii waddankan uga aqoon badneed meeshii ay ka soo baxday wasiiradii hogaamiyaashii dalka ay ka soo baxeen maanta in sidaa aan ku aragno runtii waa aad bay noo dhibtay waxaanu soo jeedinay aanu weydiisanay dawladda gaar ahaan guud ahaan hay'adaha caalamka haddii Soomaaliya la doonayo inay lagu heedo ku istaagto waa in laga saaro heerka maanta ay taagan tahay aqoonta marka waxa weeye wayna dhibaysaa inaan aragno waxaan ballan qaadnay anagu shacbiga hortiisa oo namaqlahay ilaa aan ka dhimanayno inaan ka tagin oo aan ka shaqeyno waxbarashada raggii ka baxay jaamacadan Gahayr waa fara badan yihiin waa madaxda qaranka soo martay badankood markaan tusaale u qaato dagaaladii sokeeye kadib prime ministerku ugu horeeyay jaamacadan oo ka baxay 3 prime minister oo isxigtayna jaamacadan ay ka baxeen waa Cabdiweli Axmed Gaas oo maantana ah madaxweynaha Puntland waxaa ka mid ah Cabdiweli Sheekh Axmed waxaa ka mid ah Saacid Ali waxaa ka mid ah wasiirro badan waxaa ka mid ah agaasimayaasha guud tiro mala saraakiisha maanta ciidamada gacanta ku haya qaarkood halkan ay ka soo wada baxeen tusaale markaan u soo qaato injineer Bashiir oo ah ku-xigeenka taliyaha booliiska waa injineer aan hubno oo aqoontiisana lagu kalsoon yahay maantana ah generaal ciidanka ka tirsan oo taliyaha waxaad arkaysaa ciidamadu sharaf weyn ay Soomaaliya ku lahaayeen haddana la doonayo inay ku soo haro Faarax Qare wuxuu ahaa generaal marina ah waliba wuxuuna ahaa macallin ciidamadeennu waxay ahaayeen meesha kaliya hay'adda kaliya laga heli karo jaamiciyiin haysta 2 shahaado sibilku ma lahayn hataa marka marna waa u mahadnaqaynaa oo dhismaha meeshaan aad arkaysaan sidan loo burburiyay waxaa dhisay waaga nin injineer ah korneel militariga ah maantana ku nool Boosaaso injineer Axmed Barraal la yiraahdo waxaana dhisay hogaankii dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jaamacadan aad arkaysaan intan dhan maanta mar labaad waxaan soo jeedinaynaa ciidamadu inay kaalintooda inay qaataan jaamacadanna ilaaliyaan waa hooyada ayagaa dhalay ayagaa dhisay shacbiga Soomaaliyeedna waxaan u soo jeedinaynaa in ay halkii ay lacagta qaad iyo waxyaabo aan loo baahnayn wiilashooda iyo carruurta ay dhaleen inay adduunkana la tartamaan dawlad Soomaaliyeed jirtana ay keenaan in jaamacadan nin walba Soomaaliya kii $1 heli karo kii qayb ayada ka mid ah dhisi karo nin walba dhaqaalaha uu hayo inuu ku beego si Soomaaliya looga saaro gacan hoorsiga adduunka ay u samaysanayso maantana aad baan u faraxsanahay in jaamacada halkii ku soo noqoto jaamacadan wax baan ku barannay macallimiinna waa ka ahayn anigu 15 sano macallinka ahaa 76 iyada ka baxay ee ka dambeeyay macallin aan ka ahay ilaa maalintii 30 December 1990 halkaan aan shahaadad ugu dambaysan ku bixinayn markii magaalada xabadeed isku darsameen maalintaas ayaa meeshan hadda iigu dambaysa maantana waa maalinteedii kale aad iyo aad Soomaalidu waxay tiraa cimriga geel dhala waa ku tusaa maanta jaamacadii soo noqotaan aragnaa jaamacadan waxna waa ku baranay waxna waa barna dadka oo ku barna fara badan sida wasiirku sheegay haddana waxaan diyaar inaan sii wadno mataqaan intii tabartayna wasiirka waan ku waafaqsanahay dalkan inuusan meesha ka kici karin haddaan tacliinta wax laga qaban tacliinta wax ka qabadkeedana jaamacadana u horeysa jaamacadana waa inay jaamacada kala hagto waa inay iskoolaadka hagto waa inay manhajta korbeerto
iyadana si rasmiya loo kormeero gacan cilmi iyo gacan dhaqaale la siiyo intaba sidaasaan soo jeedaa waxaan leenahay maanta waa guul weyn oo dalka u soo hoyatay gaar ahaan xagga tacliinta waa tahay aad buu mahadsan yahay daawadayaalkaasina waxa uu ahaa admiraal faarax qare waxaa ka horeeyey professor qalooco labaduba waxay ka mid ahaayeen barayaashii jaamacadda ummadda halkaasina waxaa maanta si rasmiya uga guuray qayb ka mid ah ciidamada howlgalka midowda afrika ee amisom ee muqdisho ku sugan gaar ahaan ciidanka burundi weli waxaad daawanaysaan barnaamijka dabagalka wararka waa tahay markana waxaan ku soo noqonaynaa magaalada muqdisho waxaa ku dhowaad isbuuc ku shirsanaa golaha amniga qaranka oo ka kooban madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha madaxweynayaasha maamul goboleedyada qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale taliyaasha ciidamada qalabka sida iyo la taliyaha amniga qaranka iyo maamulka gobolka Banaadir intaba waxay ku shireen muqdisho waxay soo saareen warmurtiyeed ayay ka soo saareen shirkoodaasi oo muqdisho lagu soo gabagabeeyay iyagoona isla gartay qodobadaasi ay ku heshiiyeen oo qaarkood halkan idinkaga sheegi doona hadwa la idmo haddaba sidee u arkaan aqoon-yahanka iyo dadka siyaasadda Soomaaliya aadka ugu dhuunta daloola sida dhow ula socda waxaa qadka telefoonka ee magaalada London ku jira Maxamed Xaaji Ingiriis oo ah falanqeeye arrimaha siyaasadda Soomaaliya si dhowna ula socday shirkaasi muqdisho ku soo gabagaboobay Maxamed ku soo dhawow barnaamijka dabagalka wararka bal marka hore waxaad inooga warantaa sida aad u aragto madashan la yiraahdo golaha amniga qaranka iyo qodobadaasi ay soo saareen aad aqrisay waad mahadsan tahay waa wax weyn oo aad loogu baahan yahay wadanku inuu helo xasilooni siyaasadeed iyo isku soo dhawaansho dhinacyada kala duwan ee ku loolamaya awoodda xukunka wadanka iyo kheyraadkiisa the more ay isu sii dhawaadaan the more nabad iyo loo jeeysanayo iyo dib u heshiisiin iyo xal siyaasadeed ayay u muuqataa communiquega hadda ka soo baxay waxaa ugu muhiimsan uguna xiiso badan qodobada 4 iyo 6 iyo 8 qodobka 4 ee warmurteedku wuxuu leeyahay kadib markii guddigu qiimeeyay xaaladda amniga dalka wuxuu isku raacay in la sii xoojiyo dagaalkii lagaga soo horjeeday al-shabaab iyo cid kasta oo taageero dhaqaale magangeliyana siisa isla markaana u fidisa ama sii fidisa ideology-gu ay ku dagaalamayaan haddii aan marka kaas isku dul taagno waxaad moodaa in weli dib loogu socdo ama lagu socdo siyaasaddii ahayd in military approach keliya lagu wajahayo shabaab ee aan la eegaynin la eegaynin taariikhiyan iyo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo bulsho ahaan iyo psychologically iyo colaadii dheereeda waddanka ka jirtay taroomadii waxaasoo dhan inaan la qiimeynayn lana tashanayn dadka khubarada ah dhibaatada waddankan muddada dheer uu kusoo jiray soo darsay xal weynna horay usoo bandhigay lagu furdaamin karo marka waxay ahayd bal inay si kale ama baaritaan dheer dalbadaan dhibaatada shabaab sida lagu xalin lahaa oo aan ahayn keliya military approach dhinacyo kaleo innovative ah ama la qiimeeyo itijaah cusub iyo istaraatiijiyad kale ka duwan tii dawladihii hore ay ku soo jireen haddaad marka weli sii dhiraanirino qodobka 4 wuxuu la mid yahay qodobadii ka soo baxay shirarkii hore Soomaaliya sidan oo kale loogu qabtay dibadda ama gudaha laga soo bilaabo 2009 wixii 2012 2013 ilaa iyo hadda oo 2017 wax marka iska bedelaya in hore inaysan u muuqan haddii aan ka sii socono oo aan eegno qodobka 6 wuxuu leeyahay waa in la sameeyaa guddi farsamo oo ka shaqeeya in la dhammaystiro national security framework oo ay ku jirto qaabeynta hay'adaha amniga qaab dhismeedka amniga qaranka asluubta guddigu marka wuxuu leeyahay qodobku wuxuu ka imaan doonaan dowladda dhexe maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir waa arrin aad u muhiim ah waana fikrad cusub
dib u qaabeyn xoog lagu sameeyo hay-adaha amniga si loola falgalo xaaladda amni ee ka jirta magaalada muqdisho iyo guud ahaan gobollada waddanka sidee marka su-aalaha xiga waxay noqonayaan qaabka loola falgelayo ama qaabka dib loogu qaabeynayo structurekooda loo bedelayo siduu noqon doonaa waa in waxay ahayd inay ku xusnaato in dib u qaabeyn xoog leh oo dhinac walba ah lagu sameeyo hay-adaha amniga oo shuruucdoodana dib loo bedelo hogaamintooda iyo qaabka loo hogaaminayo ay ugu yimaadaan qodobka sideedaad intaadan u gudbin isla qodobkaasi lixaad waxaa la dhamaystiraya waa qaab dhismi golaha amniga oo u muuqda hadda mid aan dhamaystirnayn sidoo kaleeto waxaa qayb ka ah dhismaha ciidamada booliska iyo ciidamada asluubta oo ciidamada xabsiyada yila waxayna ka imaanayaan dowladda dhexe maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir arrinkan gobolka banaadir ilaa iyo hadda lama cadayn maqaamka rasmiga ah ee uu yeelanayo gobolka banaadir haddana waxaa muuqata in golihii amniga uu qayb ka yahay oo go-aamadiisii uu kaalintiisi ka qaadanayo oo fadhiyadiisina uu ka qayb galayo marka arrimahaasi siday isu qabanayaan ayay kula muuqataa in maqaamkii muqdisho aanan lahayn golihii amnigana go-aanka gaaristiisa uu qayb ka yahay gobolka banaadir waxay u muuqataa laba arrimood waxay tahay inay kala saareen arrimihii siyaasadda iyo arrimihii security-ga marka maqaamka muqdisho ah arrimihii siyaasadeed inay gadaal u dhigeen ayaa cad oo ay ka hormariyeen bal amniga oo tan u muhiimsan ah bal in lala xaalo sidai hadda u eg tahay waxaa gobolka banaadir laga talagelin doonaa ama ay xubno ku yeelan doonaan national security framework guud iyo qaabka loo dhisayo hay-adaha amniga marka tan u muhiimsan waxay tahay oo ay tahay dawladdu inay raacdo inaan hay-adaha amniga waxa lagu samaynaya aysan noqon reform iyo hebeloo la bedelo hebel la keena inaysan noqon structureka iyo qaab dhismeedkay u dhisan yihiin oo dhan wax laga bedelo qaab cusub oo innovative ah oo xaaladda waddanku maanta ku jiro la falgeli kara la sameeyo saad og tahay hadda hay-adaha amnigoo dhan hadday noqoto military hadday noqoto police hadday noqoto sirdoon iyo hadday asluub noqotoba waxay u dhisan yihiin qaabkii ay u dhisnaayeen dawladdii hore militariga ahayd lalama falgelin sida ay lagama maarmaan u tahay in hay-adahani ay tahay meelaha ay ka bilaabanayso dib u heshisiinta waddanka iyo qaabka xiriir loo abuurayo stateki iyo society-gii bulshadii iyo qarankoodii uma qaabaysna hay-adahan hay-adahan waxay u eg yihiin hay-ado beredatory ah oo wax xiriir ah oo xoog leh aan ka dhex abuuri karin ayagii shacabka isla qodobka xiga ee qodobka 7 ah waxa uu sheegayaa in dib u eegista dastuurka iyo sidoo kaleeto in sanadka 2020 la helo in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah iyadoo loo maraya hanaan wadatashi ah oo 3 biloodba mar ay golaha kulmayaan suuragal ma tahay in qodobkaasi iyo qodobadii ka horeeyaba ay sida ay wax u qorsheynayaan in golahan amniga qaranka ay u fulaan waxay taas ku suurtageli kartaa waa suurtageli karaan oo dhibaato kasta oo jirta waxaa loo heli karaa xal in lagu gaaro dhibaato aan xal lahayn male laakiin muhiimadda ayaa waxay tahay saad og tahay cilmiga siyaasadda waxa ugu muhiimsan ama casharka basiga wuxuu yahay see loo qaybsanaa hoggaanka waddanka iyo xukunka iyo khayraadka haddii marka dawladda dhexe maamul goboleedyada oo keliya ku heshiiyaan sida ay awoodda dhexe u wadaagayaan iyo khayraadka yaalla waxay taas fududaynaysaa inay isku soo dhowaadaan oo la sameeyo ciidan qaran oo dhexe laga gudbo caqabadaha maanta jira cabashada badan ee dadka soomaalidu maanta ay wada dareensan yihiin oo ah inaan waddanka aysan ka jirin dawlad dhexe oo isu wada haysa lana yaaba yihiin dadka intiisa badan sababta ay taas u dhiclaadahay inay tahay inaan xal laga gaarin lagana heshiin sida loo qaybsanayo awoodda xukunka iyo khayraadka saad la socoto dhibaatooyinka waddanka jira ugu weyn waxaa ka mid ah marka koox cusub timaado oo ay xukunka qabato waxay dariiqa uga yeerataa oo ay jidka ka soo qabsataa dadkii ay madax uga dhigi lahayd waddanka waddan hadduu burburo waxa u muhiimsan ay tahay in la qanciyaa
waa dadka waddanka kala qaybiyey iyo kooxaha hubka sita ee abuuraya holaca iyo qalalaasaha ama khilaafka siyaasadeed. hadda waxaa hortaagan dowladda Soomaaliya inay waddanka ka wada taliso iyadoo soo koobantay oo meel sidii hore ay ahaan jirtay aysan ahayn. hadda dib u fiiriso sagaashameeyadii horaanteedii waxa hadda hortaagan waa laba qaybood. waa xarakad al-shabaab al-mujaahidiin maamul goboleedyada jira waddanka ee xiriirada la leh ama ay gacmaha kula jiraan wadamo darisa ama wadamo kale ajnabi ah. see labadaas ay ula macaamilaysaa xaggee ka gelinaysaa awoodda xukunka iyo khayraadka dalka see loo qaybsanayaa see loola heshiinayaa loola fariisanayaa weeye. ma aha in wax laysu yeeriyo maamul goboleedyaduna waxa ay rabaan ay ku qasbaan dowladda dhexe dowladda dhexe ee federaalkeedna ayaga ay qasabto. ma aha waa in meel dhexe laysugu yimaadaa buucda khilaafka waddanka ka taagan ee 27 sano ay dowlad dhexe u dhalan laadahayna la abbaaraa. ma aha waxaan dhisaynaa ciidan xagga gobol hebel waxaasa soo qoro kaas kaa ha keeno wax khilaafkii waddanka hore uga jiray daansiin kusii shubaya ayay tahay. aad baad u mahadsan tahay daawadayaal. kaasi waxa uu ahaa maxamed xaaji ingiriis oo ah falanqeeye ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya. waan kaaga mahadnaqaynaa maxamed sidaad noogala qayb gashay barnaamijka. waxauna daawanaysaan weli barnaamijka dabagalka wararka oo idinkaga imaanaya stuudiyaha magaalada Muqdisho. maxamed ayaana iyo falanqeyntiisa ayaa u dambeysay guud ahaan barnaamijkeennii dabagalka. waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Maxamed Ali. waxaa dhinaca farsamada iga kaabayay Guleed Cabdisalaad Qaari iyo Axmed Cali Barre Xabaara. intaan dib u kulmi doono barnaamij midkan la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.